horta aabbaha maxay u dil rabtaa adiga laba farood buu ii taagay caalamiskaas ku tagta Puntland ku tagta يعني عمري بلدونا مري قال كا عمري قالوا مري سكتي eedeysanaha xanaaq uu ka xanaaqsan yahay aabihii ay ugu biir kooxda argixisada shaab qorin uu la goostay waxba kama jiraan hal meel kama bilow eedeysana indhow dhacdo muruga leh ayuu horay u wataa taasoo ka turjumaysa sida fikirka qaldan iyo marina habaabintu u burburin karaan xitaa xiriirkan ugu qaalisan kan aabbaha iyo wiilkiisa sharwadihii shirqoolka dilka u maleegay aabihii dhinaca kale waxaa inala jira daktarkii tramadolka qawaariijta duri jiray ee taleefankiisa loogu tagay 28 lambar oo ku kaysan hal eray 23 lambar oo ku kaysan hay 10 lambar oo ku kaysan obi maxamed cumar cabdi xaashi دكتوركا 2014 ayuu ku biiray nabadiidka waana isagoo wax ka baranaya macadka alqiima ee Bulofuulay gobolka Bay ku yaala muddo 5 sano ah xilliga waxbarashadeedkiisa ayaa loogu kordhiyay 2 sano oo tababar caafimaad ah kaasoo uu ku qaatay hospitaalka argagixisada ee Bulofuulay hogaankana uu hayay horjoogay Dr. Cabdiraxmaan kadib tababarkii ciidanka jabhadda ayuu ku maray muddo 3 bilood isagoo bartay sida loo isticmaalo hubka sida AK47 BKM RPG waxaa amiir u ahaa Ismaaciil Dubad $30 oo mushaar ah oo loo bilaabay intii uu ardayga ahaa ayaa markii dambe isu bedeshay $80 sababtuna waa inuu dhakhtar yahay 2023 ayuu xaadiray buuraha Calmiskaad si uu uga qayb qaato dagaaladii deegaanadaasi ka dhacay isagoona ahaa dhakhtarka daaweeya xubnaha qawaariijta ee ku soo dhaawacmay dagaalka muddo 8 bilood ah tramadolkana dura waxa uu yimid Muqdisho iyadoo qorshaha uu yahay in la hormariyo xirfadiisa caafimaad waxaana uu ku soo degay guriga adeerkiis Umar Cismaan Xaashi oo geeriyooday kadib imaanshiyaha eedeysanaha doctorka ayaa Muqdisho ka bilaabay macalinimo habeenkii ah si uu isu qariyo isagoo dhanka kale wax u baranaya qawaariijta si markale uu ugu adeego xirfad sare eedeysana maxamed cumar cabdi xaashi doctorka ayaa taleefankiisa loogu tagay 28 lambar ku kaysan hal eray bara 23 lambar oo ku kaysan hay 10 lambar oo ku kaysan obi habkan ayaana ah shaxda caadiyan ay isticmaalaan xubnaha amniyaadka si ay u qariyaan heybta horjoogayaasha iyo xubnaha ay xiriirka la leeyihiin aniga al-shabaab anoo yaray wataan waxay geeyeen goob waxbarasho kadib markii waxbarashadii geeyeen waxay geeyeen meel caafimaad ku baranayay kadib muddo dheer kadib waxa la qaaday buraha goolis markii aan aqliyeystay oo aan gartay dhibaatada meesha ka jirto iyo in waqti badan iga lumaayo waa isaga soo dhuntay anoo hadda iska joogo magaalada Muqdisho oo xaafadeeda joogo ay la soo qabtay adinta ku dhalatay wala weyn meeshii ka wateen intee waa markii baadiyaha wala weyn markaas intee ku geeyeen waxay geeyeen Bulofuulay meesha wax ku barata markii Bulofuulay macad ku dhimay macado macad caadi diintii wax islu baranayo kadib waxa la geeyay goob caafimaad oo 2 sano ah marka dhameystay waxa la bedelay gobolka Bari intee ku taala goobta caafimaad ku barat magaalada Fuulay ku taala magaalada ku taala ayaga ku geeyeen miya ayaga geeyna ma iyaga iska lahay meesha dhanba goob caafimaad ay leeyihiin waa meeqa markaas uga baxdeen meesha meeqa qof wax ka baranaysa adii kulli dadka dad 300 ama la yahay laakiin aniga 3 qof anagu xaqna la bedelay macadkiin 3 qof laga qaaday miya caafimaad 3 qof loo qaatay kadib goob caafimaad la geeyo oo lagu baranayo marka meel isbitaal la geeyay 2 sano marka isbitaalka practic iyo 10 lagu siinaa kadib waxa la qaaday aniga gobolka Bari waxa la geeyay buuraha Calmadow markii la geeyay kadibna Calmiskaad la soo gudbiyay marka Calmiskaad anoo 3 bilood joogo aa soo tagay Calmiskaad ku tagta Puntland ku tagta hadii aad Bulofuulay ku baratay caafimaadka صح ruudkii martay يعني waxa maray baladoona maray kala ka maray garowa maray soo ku tagay inta ay wadaan qof ku dhiibay miya macna qof u dhiibay kadib meesha tagtay tagay marka waxa dhacay dagaal Daesh oo u dhaxeeyo shabaabkii Daesh u dhaxeeya goorma ka soo tagtay waxa ka soo tagay 2023 bishii 7 oo qeysa inaad dagaalada hadda markii dhacayeen oo Puntland dagaalada waa joogtay macnaheed bilaawisan joogo dagaalku wada joogo markaas oo kale oo maamulka la dirirayo ma shabaabka iyo Daesh kuma isku safa ayaga isku dhaxsanaayo ayaga is dirirayo meesha markaad tagtay oo holgasho markay meel aadan aqoonin oo dadkooda aqoonin tagtay Soomaa ma waa badan aniga waxa qabilsanaa bis inaad dadka dhaawac durbisa qabilsanaa dadka dhaawac arbadaxan oo biyaha durbisa la geeyay meeqa ku joogtaan markaas oo kale dhaqaatiirta adiga waa badanayo 30 qof malahan waa badan Daesh iyo marka isku dhaceen shabaabka see wax u dhaceen shaqada ka qabateen maxaa kamid ah aniga kulli shaqada ka qabto waxa kamid ah in qofkii dhaawaca laga soo gudbiyo meesha dagaalka in xanuun baabiya duro aad duubo kadib santarka dambe caafimaadka u gudbiyo nooca durays maxaa durays arbada si Trump kala ugu weyn Trump kala duraysa deglifin kala duri kartaa deglifin inkastoo loo galay marka dhaawac qofka uu yahay la duri karin laakiin markaas wixii xanuun baabiyaasha badan ah haystid aad duraysa
ترام دولك waxaa ku dhifanaysa xamar markaa timid yaa ku soo degto u sheegtay dawladdu waxa uu sheegaysa inaad timid dawladina u sheegay laakiin anoo nafteedu baqaayo oo cabsanayo maadaama aan ogeyn systemka meesha yaalo iyo qaabka in hadda dhibaato kale aan sii kulmaayo ka baqaayo marka qof dhibaato ma geysan waa iska jooga xaafadda iska jooga aqoon kororsi oo maadaama xirfadaadii inaad kororsato aqoon ma aadi ma gashay xirfadii inaad kororsado waa aaday sababtoo ah xagga shahaado laga siin shahaadina raadsado aniga hore u shaqeysto mustaqbalkayga aan hore u sii istarajinayo maxaa bilowday nersana bilowday ka bilowday iskuul xaafadda ku yaal takhasuska ina aadirta keewaa نهاد تقص أو سببتان جعلتها مصر بحن تقص ويمر ولكن محارة من الشهادة لو مسك قط هدو فالمشي كلها سكفرت معنا عاشق استسكير وين مركا واحد سميه هو بيجا إلا أنت لنعي والله جبتها كبيس ما واحد تولي حاجة وحقوق بدلوا قبل نسمعها وحقوق نعبرت حوا تراجع أنا سيدا قف تراجع له قليل وحقوق صبر انتصر بس sargaalkii soo qabtay hogaamiyana howlgalkii qarsoodiga ayay maxkamaddu dhageysatay kiiskiisa wuxuu naga soo gaaray oo xogtiisa xorriyaankiisa la socday hogaanka sirdoonka hay'adda ila weerarada soo gudbiyay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab xogtiisa oo dhammaystiran isku jirto locationka iyo goobta uu ka shaqeeyo alay soo diray xogtii ku howlgalay locationka guriga meesha iskool uu ka shaqeynaa ku tagay iskoolkii markaan tagay waa ka waayay oo ku maqnay maamulkii iyo ardaydii oo ku howlgalay weydiiyay inuusan joogin la sheegay markii dambe waxa ogaaday guri iskoolka aan ka fogeyn inuu joogo guriga ugu tagay waa soo waday sawirkiisa si isku aqoonsaday xafiiskiisa keenay waa wareystay report iyo raaca marsiiyay waa wareystay wuxuu ii sheegay inuu nimankan ka tirsanaay ayaga ay wax soo bareen ilaa yaraantiisii dugsiis ay sheegeen waxbarasho madraso oo ku soo qaatay buulo fulay intaas gadaasheed in loo soo bandhigay ka bacdina la yiri waqtiga lagu geliyo waxa lagu baray ku soo dhawaaw ururka markii ururka lagu soo dhaweeyay waa tababar u galay inta ka gadaal wuxuu igu daray inuu markii tababarku soo dhamaaday safar dhulka la marsiiyay ilaa Hiiraan ilaa Galgaduud oo calmadow tagay calmadow ka soo dagaalamay sidoo kale wuxuu ahaa tiktor u qaabilsan gargaarka degdega ah xaggaas wuxuu joogay 2018 ilaa 24 xamar imaado dhahay isma soo dhiibin hay'adaha amniga isma soo dhiibin howshiisa iska wata asaas dhoomalaysto ka xogtiisa la soo diray xogtaasaan ku soo qabtay intaas oo riboodna ka diyaariyeen waxa waaye u gudbiyaa la dhahay sheeg hogaanka baarista siyaasad xabsi ku keenay wixii kale iska dambeeyay baarista ku shaqo lahayd iyo kiiskiisa muddo dhowr bilood oo socday xogtiisa iyadoo diyaarsan oo sirdoonka waqti iyo qarash ay ku bixiyaan alaykan aniga sawirkiisa iyo locationka meesha jooga shaqo sawirkiisa iyo locationka iyo xogtiisa dhammaystiran meesha ka shaqeeya eedeysane cabdiraxiin xasan indhoy kulmiye waxaa lagu ogaa inuu ahaa askari xoogga dalka ka tirsan diintiisa dadkiisa iyo dalkiisana difaaca u ahaa balse 2017 ayuu wejiga bedeshay waxaana uu la soo baxay fays kale hantidii qaranka AK47 waa qaatay isagoo u goostay safka qawaariijta kadib tashkiilinta dhagarqaba lagu magacaabo macalin xanafi jilib jubada dhexe ayaa looga bilaabay tababar halkaas oo lagaga sii gudbiyay jabhad ka dagaalanta gudaha dalka Kenya uu kaga qayb qaatay dagaal halkaasi ka dhacay baxsashadiisa qof walba waa quustay laakiin rajadii ugu dambeysay waxa ay ku hartay qalbiga aabihiisa Daxli Xasan Indhoy askari naftii hore ah oo difaaca dalkiisa waxa loo sheegay in wiilkiisa laga doonayo qorigii uu kala goostay ciidanka balse qalbiga aabaha ma ahayn mid hub ka murugoonaya waxa uu ku maqnaa dareemihiisa wiilkiisii ka leexday jidkii saxda ahaa iyadoo ay jirto walwal iyo jacayl aabanimo ayuu aabuhu aqbalay inuu la kulmo wiilkiisa waliba banaanka buulo burday isagoo filayay inuu dib ugu soo celin karo dariiqii toosnaa laakiin waxa uu la kulmay ma ahayn wiilkii uu soo koriyay qof qalbigiisa ay ka buuxaan qiyaano iyo qorshe madow ayna ku saaqday sunta cadownimada qawaariijta ee aan kala sooca lahayn eedeysanuhu isna halkii uu ka muujin lahaa toobad iyo qoomamo dhagaysan lahaana warka aabihii ayuu diyaarsaday shirqool uu ku waxyeelanayo kii dhalay ninkii naftiisa u huray rijaalkii koriyey ninkii mar walba uu ahaa gabaad iyo garab aabba Indhoy dagaal saacad socday isdifaacna ahaa ayuu ku galay goobta uu ku bulamiyay wiilkiisa uuna ugu diyaariyay dhagarqabayaal aabihiis nafta dhaafiya allase ayaa beeniyay dhagartaasi aabba Indhoyna waa iska caabiyay dhagarqabayaashii eedeysane cabdiraxiin hadda marka la soo qabanayana sahan basaasnimo ayuu ka waday xerooyinka ciidan ee degmada buulo burdo ku yaal markaaga horna ciidanka xoog adoo ka tirsanaa qori la goosata asaas shabaab la aadi taas lagu heystaa eedaas ma gashay mise ma galin dooda ka qabta dood sharciya ka qaba dooda cadeed mudana gudoomiye horta aniga ma ahayn askari dawladeed ma ahayn markaan baxay macawisliya markii hore ahaa jiray waana ka fadhiistay markaan baxay
anoo fadhiyo oo maamul aan u shaqaynaynin ayaa waxaa isku dhacnay dad ehelkayga ah kadib sidaasaa nin oon diris nahay oo qaraabo korona aan nahay ayaa qoray ka qaatay oo asna macawisley ah oo qoray qabiil ah ninkaas ayaa qoray ka qaatay kabacdi dadkii isdagaalsanayna baa israaraasanay waan heshiino waalid baana kala dhex galay iyo qabiil kadib ani waxaa go'aansaday inaan dalka iskaga tago meelaha ay dibadaha iska aado maadaama ay igu xumaatay meeshii joogisteeda kadib waxaa la soo xiriiray nin oo isku deegaan aan nahay oo aan ka rabay inuu dhulkaas uu iga siiyo meelaha maro iyo waddo micnaha qaab tahriib iyo waxaas nidaamkaas inaan weydiiyo kabacdi wuxuu talo igala qaatay inaana bixin oo aan helayo meelaan ku noolaado iyo wixii aan dibad ka raadi lahay oo dhaqaale ah qaab noocaasuu igu tashkiiliyey qaab noocaasaa shabaab ku galay kadib way wadeen ballana iga qaadeen amnigaadana annagaa sugayno wax alla waxaa rabto dhaqaalaan annagaa ku siinin oo dibad ka raadi lahayd saas ayaan ku ballannay ballantii ayaan ku raacay markii ay dee igeeyeen mucaskar oo aan ka baxay kadib waxay igu dareen jabhadaha Kenya igu dareen markii koowaad ay igu dareen waxaa idhi haye dee hadda waay askari baa ahay shalay shacab baa ahay ballantii aan ku ballannay baan rabaa waa laygu booday markii laygu boodana go'aan waxaa ku qaata anigana inaan dee meesha waxba ballan ay jirin inaan iskaga baxaan go'aansaday meelaan ka baxa anoo raadinayane way i fahmeen oo way i qabteen way i xireen waxay dhaheen kabacdi dowladda ku soo dirsatay muddo 7 sano ayaa u xirnay ay dhibaataynayeen jirdil mid muuqdo iyo mid qarsan intaba wuu ugu yaalaa 7 sano ayay dhibaataynayeen ilmahayga ayay agoonteeyeen tan labaad intaa xirnay ehelkii hooyaday iyo walaalahay ayay u imaadeen haddana liif garaaceen wixii xoolo deegaanka ama xaafadda joogay way ka haysteen intaasoo dhibaato ayay ii geysteen mar haddana markay soo deynayeen hadda waqtigii ay xirteen 7 sano ayagoo ay haystay hadda markay soo deynayeen haddana damaanad bay igu soo deeyeen waxay yiraahdeen 24 saac dhaxteena laguma arki karo oo saxiixa ayay iga qaadeen anigoo saxiixa iyo nabadoonkayga kabacdina go'aan waxaan ku qaatay inaan dalkayga iyo dadkayga iyo dowladayda aan raadsado halkaas cararkii aan ka soo qaadayna waxaan imaaday dadkayga iyo dalkayga iyo dowladayda halkay ku nooleed markaan imaaday xaafadii anoo ku nasanayna waxaa ii imaaday ciidamada dowladda kabacdina laanta amniga ay igu soo wareejiyeen sidaan baa halkaa ku imaaday arrinteedu waa nooca marka qofka oo qaraabada nimada aad marka hore u sii martay oo kugu tashkiiliyey muxuu ahaa ninkaasiga shabaab ka tirsanaa laakiin isku deegaan ahayno horba isku kasii jirnay macallin Xanafi baa liira intee tababar ka gashay marka kugu qanciyey tababarka ka gashay waxaa ka galay jubooyinka dhinaca qaasatan jilib iyo bu'aala meel u dhaxayso marka koox badan ahayn tababarka markaas 100 askari ahayn tababar jabhadnimo caadi u ahaa jabhad waa ha ballantu maxay ahayd ballantu waxay ahayd markaas aan reer laba ahay danta dibad u aaday ay marka hore iga ballan qaadeen oo dhaqaalaan ku siinaynahay dheen kugu filno reeraada aad ku biilato markii runtii loo tagayna waxaan reerayga aan ku biisho igu filnaado in la siiyo iskaba dhaafay markii aan ka hadlaybo waxa la yiri meeshaan dhaqaalo u maadan imaanin nidaam kale u imaatay wax dhaqaale ah kama hadli kartid waa la afduubaybo markii horena ballan la iga qaaday dhaqaalo kugu filnaa lagu siinaa lagu yiri lagu waday markii hore meeqa xaasal ahayd adiga laba xaas markii aan baxayaan lahay hal xaasna dhexdooda ku guursaday saddex xaas marka biilka ku biileeda ka rabtiga aan ka rabay waana ku ballanay inay siinayaan waana iiga baxeen marka lacag cadad ma lagu sheegay cadad cadad la sheegay ilaa 600 700 waa lagu siinaa leedahay hadii oo waxa amnigaadana waa la kafaal qaadaa laba reer hadii ani waxa yiraahdeen nin xamuul jiida ay waalida iga dambeeyo ilma iga dambeeyo shaqadiina way halawday dibada iska socdaa ay dhaaf baa ninkaas ku yiri qaraabaan ahayne nidaamkoodana ani ma ka saynin asaa igu yiri marka waxa loo u baahanta oo lagu siinaa amnina waa helaysaa aawin xaaskii inta xirnay baa lagu kala baxay sidee midna ayaga fasaqay oo maxkamadooda bay ka fasaqeen labana deegaankay joogeen ayagana waa sidaas oo kaleeto waa la guursaday qaab lagu guursaday ilaa hadda garan maayo laakiin in la guursaday oo ilmo dhaleen baa la sheegay islaamahaagi biilki marka oo sugayso meeqay kaaga dhigeen ku siiyeen biilkii $100 ay siiyeen oo aan ka dooday waliba markii dambana waa iga jarteen markaa dood bilaabay markii biilkii isku maan dhaafteen hadda u kala guurtay ballantii aan ballanaa horta isku maan dhaafnay ballantii hadda iiga baxeen aniga awalba waa ballanay ballantii baa iiga baxeen aan go'aankayga qaatay hadafkayga meelaan ku baxaan raadinay wadadii ku baxaan oo raadinayna way qabteen qoriga qaatay muxuu ahaa qoriga qaatay qori qabiilo ahay nin deegaan oo dirisna iska lahay waana leeyo gudo isla markii baa leeyo guday isla waalidkay baa iga gudaanay xitaa qayb ka bixiyay adiga hadda soo bixiysid inaad sheegsameen hebel waa soo socda dawladii waa soo socda dhaxdamaha waa sheegay nabadoonkayga balad weynoo joogay meesha laga soo qabtana bulobirday aad
tag baa la yidhi xaafadda waalidkaa u tag annagaa kaa daba imaanayno nidaamkii maamulkii habraac annagaa ku marinayno annagana maadaama la yidhi 24 saac waddanka kuguma arki karno go'aan waxaa qaatay inaad dalkayga iyo dowladdayda aan isku dhiibo wax alla wixii iga qabanaya ha iga qabteeno nabadoonadeeda iyo waalidkay iyo walaalahayna ay la tagaan saasaan go'aansaday dee nabadoonadii iyo waalidkii iyo habraaca marinne maamulka dowladda ayay imaadeen sidii baa xabsi ku soo galay nin laga warhaayo nabadoonadii ogaayeen baan ahaayoo ogaal meesha ku imaaday markii ku xireen intay kugu xireen shabaab waxay igu xireen awal jilib ay igu xireen anoo baxsade kadib haddana waxay mariyeen saako ay geeyeen ay igu xireen haddana markii meeqa soo joogtay Kenya 4 bilood kaliya u shaqeynayba 4 bilood kaliya u shaqeynay kuwa markaa macskar ka baxay way qaadeen xaduudda Kenya ay geeyeen 4 bilood jooga 4 biloodna dooda noo socotay intee dhinace xaduudda Kenya dhanka gada iyo gada dhexdeeda xaduudda gada iyo Kenya meesha iska galayaan waay abaaraan waxay u dhaxaysaa ceel waaq iyo balad xaawo meel u dhaxayso waay dhaxdaasi ku aadantahay hadii deegaan ahaan la tilmaamana waxa la yiraahdaa dhabasa Kenya ama dhabasa Soomaali sidii loo yaqaan maxaa la dhabasa Kenya halkaas waa xaduudda meesha ay ka galayaan inta hadda uu sheegay waxyaabo qaar uu ka tagay oo in argixisada oo ay u dhiibatay 360 askari oo argixisada ka tirsan saadkooda in loo dhiibtay ayuu qiraalka ku sheegay waxyaalahaas hadda inta kamuus sheegin in markii uu Kenya tagay jabhad lagu daray jabhadaasina ay soo bartay la baray meelaha uu ka dagaalami lahaa iyo lagu soo wada wareejiyo meesha dhan la soo baray si uu hadhow dagaal meeshaas uga sameeyo waxyaabo badan oo meeshan uu ku sheegay qiraalkiisa laakiin hadda inta kamuus sheegin maxaa ka tagnay dad waa sax warka si loo sheegay waa inta qaabkaas baa u sheegay qaabkaas buuna u jiraa tan oo ciidamo mas'uul laga dhigane ma jiraan ani wax la magacaabo xil ma jiraan alaab meel tiila baa la dhiibay si ku simaahana lagu dhiibay xilna leema magacaabin alaabtaas un baan hay adaad in ka mas'uul leema dhihin oo si ku meel gaaraan un baan u hay raashin oo garaam ciidan way adaa mas'uulka oo xil ahaan lagu magacaabayna ma jirin askari ba ahay wax mas'uuliyad oo aan ka qaaday ama lagu dhiibay ama garaam lagu siinayna ma jirin garaamka aan u dooday waa garaamkii markii hore laga ballan qaaday oo ballantii ayaga aan ku raacay ahaa tan stoorka lay dhiibayna ma ahayn mid oo xil lagu magacaabay waa mid si ku meel gaar ahaan ninkii shaqada iska lahay oo u maqnay aan u hayay oo lay dhiibay ma qaybay sayili wixii soo dhiib liira u baa dhiibay gaariya jooga meesha qof ma la siinaa mise wax la karaayo maya badar waa dhowr loor soo dhiib intaasoo loor soo dhiib 5 loor soo dhiib 10 loor soo dhiib saas weeyaan oo kuwa wixii la karaayo oo loo qaadayo meelo kale iyo loo sii qaadayo baraha galkan ugu wakiilka ah hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa natiijada baarista ee macluumaadka ku biiriyay maxkamadda ku-xigeenka xeeraryaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Axmed Cabdallah ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaashan ay ku qaado qodobada eeday xafiiska xidhaalinta mudan gudoomiye labada eedeysane adaan kala qaado eedooda eedeysanaha koowaad oo ah Maxamed Cumar dhakhtarka waxaa loo haystaa inuu ka tirsan yahay argixisada al-shabaab gaar ahaan qaybta caafimaadka argixisada sidaan ognahay ayadaa isqaybisay qaybna caafimaadka qaybna jabhadaha qaybna waxay dhahaan dilalka qorshaysan kuwa fuliya eedeysanahani waxaa soo tababartay oo aasaaskiisa min bilow markii uu yaraa ilaa iyo hadda ku soo tiiri tacabeelay argixisada gaar ahaan qaybta caafimaadka waxaa la soo baray machad oo sida iskuulka dugsiga sare camal ah sidoo kale machad oo haddana argixisada ah oo la barayo caafimaadka oo aan la baraynin maadooyinka kale ee jira maadada caafimaadka kaliya la barayo ay argixisada soo bareen kadib markii machadkiisa uu dhamaystayna waxay u fureen tababar jabhad ah tababarkiisa markuu dhamaystayna waxaa loo diray buurleyda calmiska halkaasi uga soo dagaalamay jabhad halkaas ku dhuumaaleysanaysa ay eedeysanaha ku biiray dagaallo halkaas kaga soo qayb qaatay sidoo kalena xirfadii la baray ee caafimaadkana jabhadda ayuu ugu kaalmeynayay oo wixii dhaawacmana uu daaweynayay waxaa ku filaan weysay caafimaadkii intii uu bartay oo uu ku bartay macaadidii argixisada ee lahaayeen maadaama argixisada aysan caafimaadka experience weyn u lahayn eedeysanaha waxaa loo soo diray magaalada Muqdisho si uu u kororsado aqoontiisa caafimaadka argixisada ayaa u soo dirtay halkan isla markaana kana bixinaysay dhaqaalaha uu ku baranayo
caafimaadka oo uu ku takhasuskiisa kusii kordhisanayo eedeysanaha waxaa la geeyey iskuul lagu magacaabo New Era sanadkii uu imaaday isla markii ayuu ku biiray wuxuuna baranayay takhasus ahaan kalkaaliye caafimaad si uu argixisada ugu anfaco cilmigaas iyo waxaas uu halkaa ka barto balse waxaa ka hortagay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed oo eedeysanaha ka war heshay xogtiisa kadibna sidaas gacanta ugu soo dhigtay haddii aan gala eedeysanaha labaad oo ah Cabdiraxiin Xasan Indhooy waa eedeysane hadda ka tirsan argixisada al-shabaab balse taariikhdiisa markii laga sheekeynayo waa taariikh mugdi ah eedeysanaha wuxuu markii koowaad ka tirsanaa ciidanka deegaanka reer Hiiraan gaar ahaan degmada Buulaburde macawisleyda ayuu ka mid ahaa waxaa loo qaatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed eedeysanaha halkaas ayaa waxaa lagu daray ciidamo militariga ay qoranayeen eedeysanaha waxaa la siiyey qori AK-47 ah si uu ugu shaqo galo ayadoo la rabo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in si toos ah loogu qaado tababaro dibadda ah halkaasna uu mustaqbalka ka anfaco eedeysanaha wuxuu sameeyey inuu ka goostay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo ku biiray ururka al-shabaab sababta ka dambeysay inuu kooxda argixisada al-shabaab ku biiro waxay ahayd eedeysanahani waxaa dhacday in xaas uu qabay eedeysanahani uu jir dilay uu garaacay kadibna aabihii ayaa eedeysanaha xiray kana furay xaaskii uu qabay eedeysanaha isagoo ka xanaaqsan xariga la xiray iyo xaaska laga furay ayuu wuxuu ugu biiray kooxda argixisada al-shabaab intaas xogtaas waxaa noo sheegay aabihii dhalay eedeysanaha oo ah Saddexle Xooga Xasan Indhooy Kulmiye noo sheegay eedeysanaha waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Xasan Indhooy Kulmiye laakiin xogtaani waxaa sheegay Saddexle Xooga Xasan Indhooy Kulmiye loo sheegay oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu sheegay in eedeysane Cabdiraxiin marka uu al-shabaab ku biiraayo uu ka xanaaqay xaaskiisu jir dilay uu garaacay uu dhaqan waayay kadib waa xiray uu yiri marka xiray eedeysanaha waana ka furay xaaski eedeysanaha xanaaq uu ka xanaaqsan yahay aabihii ayuu ugu biiray kooxda argixisada al-shabaab qorin uu la goostay dhacdaas dhacda ka sii xanuun badan dhacday eedeysanaha waxaa la xiriiray aabihiis wuxuu ku yiri aabbo qoriga lagu haystay qoriga sakeen eedeysanaha meel uu ku balamiyay meel ka tirsan afcad liiraado ayuu eedeysanaha ku balamiyay wuxuu yiri halkaas igu imo qoriga si aan kugu wareejiyo ninka la yiraahdo Xasan Indhooy oo ah eedeysanahan aabihiis oo qabaarmooga oo loo diyaariyay mission loo diyaariyay eedeysanahan uu diyaariyay ayaa waxaa dhacday in uu meeshii tagay eedeysanaha halkaas wuxuu ugu diyaariyay koox argixisada ka tirsan si uu aabihii u dilo waxaa dhacday in Ilaahay uu ka badbaadiyay Xasan Indhooy dhagartaas loo dhigay iyo missionkaas uu eedeysanaha u dhigay uu ka badbaaday markii uu halkaas ka baxay wuxuu watay 20 askari oo watay sababtoo ah eedeysanahani wuxuu ogaa inuu argixisada u galay warbixinta jaalo waa la wada helay laakiin wuxuu isdhaayay in aabanimada ay deeqdo oo waxa laga yaabaa uu qoriga ku soo dhiibo wuu aaday si qoriga uga soo qaato laakiin Cabdiraxiin wuxuu sameeyay meesha mission ugu diyaariyay wuxuu noo sheegay Xasan Indhooy in ku dhawaad hal saac lagu dagaalamayo meeshaas oo ay dagaalamayeen kooxda argixisada al-shabaab oo eedeysanaan meesha uu ku soo diyaariyay iyo Xasan Indhooy 20 askari uu watay Ilaahay ka badbaadiyay meesha si uga soo badbaadeen mudane gudoomiye sidaas ayuu eedeysanaa argixisada ugu biiray asagoo cara ka xanaaqsan aabiis raba inuu mishmuud dilo ayuu haddana argixisada sidaas ugu biiray eedeysanaa argixisada muxuu ka soo sameeyay argixisada waxay kala wareegtay horta qorigii tababaray u furtay kadibna waxay u dirtay Kenya dalka Kenya u dirtay dambigani wuxuu noqonaa marka dambi international ah oo noqonaya Soomaaliya oo ka gudbay wuxuu galay dalka Kenya oo galay xuduudo ka tilaabo mudane gudoomiye eedeysanaani dalka ayuu ka baxay wuxuu galay dalka Kenya xuduudiyo ka tilaabay wadan iska nabada iyo deegaano iska nabada oo waliba ay degan yihiin Soomaalida degtay dalka Kenya ayuu eedeysanaani wuxuu ka kicinayay dagaal wuxuu sheegay inuu qiraalkiisa wuxuu ku sheegay qiraalka uu ka hor qoray maxkamadda ciidamada 360 askari oo argixisada ah inuu halkaas ku haystay waa urur ciidana waa haddaba mudane gudoomiye eedeysanahani hadda markii la soo qabanayo waxaa laga qabtay degmada Buulaburde
buula burda wuxuu ka hayay eedeysanahani indhendhen basaasnimo bacdamaa eedeysanaha uu reer buula burda yahay halkaas uu argixisada ka raacay waxaa dhacday in hadda buula burda ay ku yaalaan xiriyo ciidan oo muhiim ah oo weliba howlgallada argixisada lagu ciribtiraayo muhiim u ah eedeysanahani halkaas ayay argixisada geli waayeen waxay argixisada halkaas dhibaato weyn uga taalo bacdamaa buula burda ay ku yaalaan xiriyo ciidan oo muhiim u ah ciribtirka argixisada al-shabaab eedeysanaha waxaa loo diray inuu halkaas soo basaaso qaraxyaa loo diyaariyey qaraxyada halkaas loo diyaariyeyna eedeysanahan uu la beegsadaa loo diyaariyey mudane guddoomiye balse mar alla markii uu soo galay reer buula burda oo dhan waa wada yaqaanan eedeysanaha fartaa lagu fiiqa sidaasaa lagu soo qabtay haddii aysan dhici lahayn in lasoo qabto ama odayaal iyo sida uu sheegayo uu meel hoosoo isgeli lahaa waxaa dhici lahayd in xeryaha ciidanka ee ciribtirka argixisada muhiimku ah in eedeysanaani uu basaaso qaraxyana la beegsado haddaba mudane guddoomiye annagoo ka faa'iidaysanayno maadaama maanta cadaaladda aan hor taagannahay waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanayaa kow in eedeysane cabdiraxiin xasan indhoy oo ah xubin ka tirsan argixisada al-shabaab dowladda iyadoo fursad siisa qori uu la goostay oo argixisada qoriga uu geeyey aabbihii mishimay haddana sameeyey dembi international crime ah oo dalkii inuu ka baxay dal kale oo nabad iska aggalay oo ka soo dagaalamay haddana dib ugu soo laabtay dalkii waa dembiye xiriir ah waa saxiixiga waa mudane guddoomiye waxa uu sameeyey eedeysanahani dib inuu dalka ugu soo laabtay haddana qaraxyin rabay inuu ka abaabulo degmadii uu ku dhashay buula burde saa darteed mudane guddoomiye waxaa maxkamadda sharafta le ka codsanaya in cabdiraxiin xasan indhoy ay ku xukunto ciqaabaha ugu adag ay dhigayaan qodobadii aan ku soo eedeynay mudane guddoomiye eedeysane maxamed cumar cabdi xaashi oo magaciisu afgarashadu uu yahay dictoorka ama ah dhakhtar ka tirsan argixisada al-shabaab bacdamaa uu maxkamadda horteeda qiraal ka qirtay inuu ka tirsan yahay kooxda argixisada al-shabaab isagoo jiro muddo 14 sano ah ilaa hadda uu jiro 25 sano waa 10 sano ka badan waay inta uu ku jiray dictoorka kooxda argixisada al-shabaab muddadaas dheer wuxuu ka shaqeynayay lugooyada iyo dhibaateynta ummadan Soomaaliyeed ka shaqeynayay ilaa wuxuu ka soo dagaalamay wala weyn inuu ka baxay baay iyo bakool ku soo tababartay baxay uu hadare wuxuu maray galgaduud mudug sidaas oo bari u galay buuraha calmiskaad uu ka soo dagaalamay heerka dhagarta fiir intaas ku jirto mudane guddoomiye bacdama sane dictoorka uu qirtay inuu argixisada jabhad ahaan ugu dagaalamayay dhakhtar ahaan u daaweynay dhaawacyadooda waxa maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in eedeysane maxamed cumar dictoorka ay ku xukunto ciqaabaha ugu adag ee dhigayaan qodobadii aan ku soo eedeynay maxkamadda sharafta loo maasantahay qareennada ayaa maxkamadda ka codsaday in muwaakiliintooda loo fiiriyo si fifaalaha dembiga fududeeya waxaa qareen u ahay maxamed cumar cabdi xaashi oo ah eedeysanaha maxkamadda hortaagan mudane guddoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh markii horena xoog ayaa lagu qasbay oo qasab ayay ahaaday asoo yar caruur ah waxba aan garanin ayay sida kooxdaas caadadoodu ahaydba ayay dugsigii ka wateen waxay waxbarasho ugu yeeraan ayay ku qasbeen dagaal uu galay uu ka qayb qaatay oo al-shabaab iyo dawladda ku dagaalamayaan ma jirto hal dagaal ayuu wuxuu ka noqday dhakhtar asagana wuxuu u dhaxeeyay labada urur argagixiso oo daacish iyo al-shabaab ayuu u dhaxeeyay sida asaguba sheegay ilaa hadda maxkamadda lama horkeenin markii uu ka soo baxay al-shabaab ka bacdi wax ku saabsan oo qayb ka noqday oo la cadeeyo xafiiska xilalaaliga uu cadeeyay ama baarista lagu soo ogaaday mudane guddoomiye garsoor maxkamadda sharafta lama jiro qodobka ugu dambeeya aada oo ah qodobka 25aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada oo ku saabsan xog ururinta iyo basaasnimada ay maleegaan kooxaha argagixisada mudane guddoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh xog ururin haddii la yiraahdo iyo basaasnimo astaamo qofkii arrintaas ku shaqo leh waxyaabo badan oo arrinkaas muujina oo laga heli karaa jira lama helin maxkamadda lama horkeen sida dukumeenti wax ugu qoran yihiin gurigiisa waxyaabo laga helo basaasnimo qof uu basaasay cod uu qof u diray sawir qof uu u diray wax ku saabsan arrinka lama keenin wax dhaqaale ah oo markii al-shabaab uu ka soo baxay waa muddo ku dhow 3 sano ku dhow oo wax yar oo bilaa dhiman inta wax
oo loo soo diray ama asagu u diray ama xog uu diray ama loo soo diray ururka argagixisada ay u soo direen ama asagu u diray la wadaagay maxkamadda lama horkeenin wax uu dhibaateeyay ilaa intaas uu joogay oo hadda maxkamadda loo soo bandhigay ma jiraan wadana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh eedda waxa ugu dambeeya qiraalka eedaysana wuxuu sheegay al-shabaab inuu ka tirsanaa jiray laakiin uu ka tooba keenay in uu isaga cararay mar hore toobadana waa furantaho ilaahay wuxuu yiri watuubu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna la'allakum tuflixuun ilaahay wuxuu ummadiisa ugu yeeray in ummaddu ay ka tooba keenaan dibbi kasta ay ku jiraan asagana fursadaas ayuu ka faa'iideystay maadaama markii hore uu yaraay meel uu ku baxsado uu la'ay aqligiisa uusan gaarsiisnayn meel uu ku baxsado markuu hero aqliyeystana wuu isaga cararay wuuna ka tooba keenay arrinkaas ayadda waxaa ku jirta la'allakum tuflixuuna ilaahay u daba dhigo ka tarjumayso marka ayadda inkastoo ku saabsaneed عن النظر الممنوع في ردي الحرمي أدنى وحي قليسا ومما وقع عن الإنسان وح الله وحي بالآدم ككرع عرضا إن إلهي وحي أمدي سويري إن كتوبة كيني كران مركا وح أو ساعد داس توبة كيني ساعد داسنا توبة كان ليه كرام مجران صدر تيدا حلقي إلهي فرصة أسيو كعرري وحوقو آن صدق إنه سنكسي مد أهانين لبعتين تشعب كيس لبعتين أيو مركو عقلي شيء فرصتنا وهلي سداس أيون أوغا توبة كيني توبة كين كان waxay ka mamnuucaysaa dembigii uu ka tooba keenay in lagu ciqaabo adduunka iyo aakhirada lagu ciqaabo saadarteeda uu ka faa'iideystay wuuna ka tooba keenay tooba keenkiisa waxa la rabaa qofka hadduu tooba keenay toobadiisu tooba wanaagsan oo toosan inay tahay mudana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh tooba keenkiisu wuu wanaagsan yahay wuxuu ku wanaagsan yahay ilaahay wuxuu yiri tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxan toobadiisu nasuuxa waayo markii al-shabaab uu ka soo baxay muddo 3 sano ku dhow wax xiriir ah oo la sameeyay ma jirto oo haba yaraatee oo xaggeeda u aaday mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh ma jirto intaasoo sano ayuu magaalada joogay wax uu dhibaateeyay qowl iyo ficilba ma jirto uu ka tooba keenay fikir ahaana wuuba ka tanasulaba mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh maadaama mar hore uu ka baxay ururka al-shabaab oo 2 sano iyo 9 biloodba uu banaanka ka joogo maadaama wax huba markii hore aan lagu soo qabanin wax asaga lagu arko dhibaataha oo aan jirin maadaama uusan fahamsanin markii al-shabaab uu ka soo baxay in ay waajib tahay in la xiriiro hay'adaha amniga si habraacyada loo marsiyo uusan fahamsanin maadaama aan la cadaynin fal argagixiso qayb ka noqday markii al-shabaab uu ka soo baxay ka bacdi maadaama dagaal uu ka qayb galay aysan jirin oo dawladda uu macnaha dhan ka ahay oo ay jirtay kaliya waxa uu dhakhtar u noqday labada urur argagixiso al-shabaab iyo daacish oo isdagaalayo dhaawacyadii uu qayb ka daaweynayo wax dawladda ah oo uusan la dagaalamin maadaama hooyadiis yaraantiis markay wateen dhimarka dhanba uu ka tagay markii ay maqashay al-shabaab uu ka soo baxay oo si nabad uga soo baxay ay maqashayna dhimarka u soo laabtay ehladeedu in la wadaageen mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta waxaa ka codsanaa in eedda xafiiska xil ilaalinta maxkamaddu ay diido in toobadiisa loo tixgeliyo maadaama toobadiisu ay wanaagsaneed si waafaqsan qodobka 3aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada in maxkamaddu dib ay ku waayso si waafaqsan qodobka 122 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed in maxkamaddu aragto qof bulshada la mid ah aan dib ku ahayn xataa aan u baahnayn dhaqan celin aan u baahnayn ida badala shay badala ma fi dhimni markii hore waxa looga cabsanaa in khatar ka imaan karto khatar oo in dhaqan celin la geeyo ah ma qabo maadaama ku dhawaad 3 sano uu joogo wax dhib iyo hadalna aan lagu arag in maxkamaddu xorriyadiisu u celiso maxkamaddu way mahadsantahay mudane gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh magacaygu waa Abkaat Cabdiqaadir Barre waxaan qareen u ahay sanaha maxkamadda hortaagan Cabdiraxiin Xasan Indhooy Kulmiye si waafaqsan qodobada 15 16 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed dhacdada loo haysto wakiilkeena aan qareen ku ahay gudoomiye ninka dhacdadan way jirtaa in uu ka tirsanaan jiray uu kooxda al-shabaab asagana maxkamadda ka hor sheegay inuu kaga biiray buulo burdameel u dhow 3 bilood markii uu la joogay dabcan wixii uu ka rabay inuu ka waayay oo ahayd wixii u ballan qaadeen asaga maxkamadda ka hor sheegay wuxuu u sheegay inuu jeclaaday inuu isaga tago oo deegaanadiisa gadaal ugu laabto basaas baa tahay ayay ku dhaheen wayna xireen 7 sano ayuu u xirnaa eedeysanaha ururkaas xarigaas uu xirnaa 7 sano waxay sababtay in eheladiisii ay
duug u dhigeen oo macnaheedu yahay inuu dhintay uusan noolayn 7 sano oo dhib iyo rafaad ah ka dambo way soo fasaxeen in damiin lagu soo daayay oo nabadoon uu soo damiintay oo saas ay ku soo fasaxeen oo dheen 24 saac deegaanadeen uga bax maxkamadda waa laga hor sheegay markii uu imaaday Buulaburda deegaanka u dhawaa oo nabadoonadii ula hadlay oo leeyahay anaga ku imaanaynay waa soo dhibaysa magaalada soo galaysaa leeyahay ciidankii loo soo diray ayaa Buulaburda ku xiray sidaas ayaana loogu soo wareejiyay magaalada Muqdisho marka fikirka ujeedka uu soo socday oo halkaas ugu yimid waxay ahayd inuu ka tanaasulay afkaartii fikirka awal uu nimankaas uu kaga tirsanaa maadaama ay dhibaateeyeen 7 sano u xirnaa inuu deegaankiisa soo aado dadkiisa ula noolaado ayuu u imaaday deegaankiisa ka dambana dawladda uu soo aaday ayaa xabsiga hadda uu ku jiro ugu bedeshay oo ku xanuujinayso qoriga xafiiska xeeraanta ku soo celiyay baaraha iyo waxaad moodaa inay iska warqabin xeeraalinta baaraha waxay baariseeda ku sheegtay inuu ka tirsanaa Macuusley halka xeeraaliha uu ku soo celinayay inuu ka tirsanaa ciidanka xoog hadduu ciidan ka tirsanaa nambarka ciidan uu lahaa uu sheegi lahaa Macuusley buu ka tirsanaa ninkan markiisa hore qoriga uu xafiiska xeeraalinta uu leeyahay ciidan buu kala goostay ma jirto qori uu ciidan kala goostay qoriga waxa iska lahaa qori qabaa'il ay leeyihiin buu ahaa deegaanadaas uu Macuusley uu kaga tirsanaa inuu ku ilaaliyo ayayna ahayd qorigii asaga ahaa dib baa loo guday aabihii baa magay oo dadka iska lahaa baa loo celiyay sidaas marka meesha waxa ka baxay qodobka 186 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo tilmaamayo hanti lunsasho dhacdada mudan gudoomiye aabihii ay ku eedeynayaan inuu dilo u rabay totally dooda tilmaamayso aabihii uu dili rabay waxba kama jiraan hal meel kama bilow marka wax cadaawad asaga aabihii kala dhaxaysay ma jirin qori uu gatay ama uu si kala gacantiisa uga baxayna kama mageen marka aabihii iyo eedeysanaha wax colaad ah iyo wax dhibaato ah oo ka dhaxay ma jiraan nimanka lagu eedeynahay mudan gudoomiye asaga ayaa dhibana u ah maanta 7 sano xirnaa caruurtiis warka muuna haynin xaasaskiisii ma joogaan marka ciqaab iyo culays iyo rafaad iyo dhibaato waxa ugu filan inta uu hore u soo maray iyo midda hadda wali marayo miraheeda uu guranayo waxaan gabagabada iyo waxaan ka tagay codsiisina qaranka saaxiibkii maxkamadda sharafta inuu ku dheeraanay waxa ka codsanayaa 3 shay in sifaalaha dambiga fududeeyo loo fiiriyo sidoo kale asaga laftiisa maxkamaddu dib u fiirisay arintiisa in maxkamaddu xorriyadiisa siiso cadaalad iiraanka maxkamaddu ka codsanaya maxkamaddu ma maasanta maxaa ku baxay maxaan codsanay horta markii horeyso waxaan cadeynayaa sida baariyada sheegtay nabarada hal ma ku qoryihiin sababta ku imaadeen rabaa in cadeen u reen nabaradaas waqti aniga aan xayeysiin jiray saacadaha oo Facebook aan ku xayeysiin jiray marka koow ay imaanay ama xasmay jiray qof kasto groupkiisa oo WhatsApp iga soo qabto hal magac oo si aan u qoonsadaan ku qoran jiray dadka macaamiishiida oo waxay soo dalbadaan sidaas darteed nabarada ma daleedin way isaf gareystaan WhatsApp-ka ugu jiraan maxaa xayeysiin jirtay ka bilow saacadaha yiriska xayeysiin jiray macnaha fashion-ka qofkii macnaha saacado kale iga soo dalbado ama catar iga soo dalbado kaleeto markuu isoo qabto su'aalo kale oo biyaan si qoran jiray macnaha si macnaha hadhow aan u aqoonsado qofkan inuu kamid yahay dadka waxay soo dalbadeen waa saf gareysay WhatsApp-ka iska saf gareeyay marka magacyada noocaas oo kale qaabka saartu ku imaadeen ma gidgidii saacadaha adiga waa gidayaa meel ma leedahay macnaha may online ku xaysiinay macnaha Facebook aan dhigi jiray markii aan bar dhigay oo dhowr bilood ka shaqeynaa dhigay wax baa soo gali waayeen markii waa iska dhaf Facebook ma leedahay isticmaasha adiga waa isticmaalaha maxaa kugu qoran adraawi marka ma afgarasha maya adraawi waa iska jeclaa macnaha maadaama nin abwaan waa hajri magacaas waa iska jeclaa ana iska jeclaa Facebook aad ma isticmaasha wixii waa ka dilay maadaama wixii aan iska dhaafay oo waxba anfacay keen waayeen waa isaga tagay macnaha lambarada isaf gareey jirtay marka tusaale kale qofka markuu yiraahdo shay u baahan oo kale WhatsApp igu soo waco macnaha waa saf gareena marka saf garee markii ilaa laabta ugu tagayso si aan ku aqoonsado macnaha magacaas si kala duwan u saf gareeysa marna xarafka marna u biya si qoro marna haay wixii markaas igu soo dhacay qoro maxkamadda sharafta leh tan kale oo al-shabaab in hadda la shaqeynayay wax ka jir ma lahan aniga al-shabaab anoo yaray wateen oo qiyaastii daadida dhameed 14 sano ama 15 sano oo waqtigii 14 ka ahayd oo macday geeyeen macadkii markaa dhameen waa tan sheegay oo meesha ay mariyeen wixii dhan sheegay warqadan kalsoonaa oo qoraal ku qoran tahay hadda yaa la joogtay hadda waxa la jooga qaraabadii la jooga familka adeeraday adeerka muxuu ka shaqeeyaa adeerkii xoolo waa baadiyo isku jira maro inaad bis xamar maadaama ay maatay dadka oo dawladda ku jira inaad sheegto soo ehel waa kuleeda Soomaaliya ha laakiin markii hore waa imaanay waa jeclaa inaan sheego laakiin waxa isdhahay inay ma dhibaato ka lagu geystaa haddana dhib kala sii martaas dhahay hadda dhibaato geysanin cid ku dhibays ma lahan isdhahay
shi waa isaga dhan marka abaara joogno waa sii qancay adaawa dhibaato kale geysinin ana dhibaato ma geysin waa iska joog ana iska joog la soo qabtay haddana wax shaqan kula hamala nimankaas waa ku soo tanaasuli ilaahay niga soo tanaasuli oo igu soo waday maxkamadda sarafta la hooyada maxaa keenay tiri maya hooyada markaa la ii watay hal bil macnaha maskaxda beeshay macnaha meesha joogto iyo waxa xusameeyay in moogen taas way qorantaa tan kale aniga indhaha waxa ka xanuunsan oo kale ay qornaa sidoo kale maxkamadda sarafta la iyo gudoomiyaha iyo xeralayaha iyo dhammaan dawladdu waxaan ka codsanayaa inay xurriyadda dib ugu soo celiso maadaama qof hadda mustaqbal bilaabanayo oo hore socdo saasan la insha Allah aragga fog ma ka maqan aragga dhawa ka macnaha aragga saasiga maqan laakiin marka meel aftino kale ku socdo indhada biyo ka daadanaya macnaha waxa xanuunsanahay horta aabbaha maxay u dil rabtaa adiga mudana gudoomiye aabahay ma dil rabin warkaas ayaga waa leegu ban abuurtay wax ka jirana ma lahan qoriga keen ma ku dhino qoriga aabahay qoriga keen waa yiri ilow laakiin wax dil iyo dagaal midna ma dhaxmarin qorigaasna qori qabiil buu ahay inta markuu keenay leeyahay maraa cuno ahay ma bahayninba oo inaan ku tahriibaan rabay sida hore u sheegay oo inaan dibadda ku aadaan rabay aabahayna wax dagaalana ma dhaxmarin meeshii oo ku cad dagaal ka dhacayn miyaa marka maba wicinba aniga asiga wax wicitaanana ma dhaxmarin qorigana waaba gatay markaas ayada la sheegay xitaa mar aniga aan qorig gatay oo tahriib aan u socdo waxa waaye shabaab xitaa shaqo aan isku lahayn waaye wax shaqo isku malihin shabaab xitaa markaas kuma beerin kamana mid yihiin islaanta xog laga furmay dagaalka daad sheegaysi waxan maxaa waay maya cid islaa iga furto male islaamkayga anoo qabaa la iga xiray saddex xaas baan qabay wax uu aabay iga furay ma jirin xaaskayga saddexdaba anoo qaba ayaa la iga xiray dagaalka sheegaysi oo gala dhigaysi daad dagaalka waa dagaal qabiil dad ehelna oo dirisnahay ayaa isdagaalnay aabahay isma dagaalin xaaskayga isma dagaalin waxaas waa been abuurasho xaas ku dagaashay dad diris ayaa ahaynay beerna waa isku dagaalnay xoolna waa isku dagaalnay kabacdi ficil qabiil iyo wax baan dhax maray dad iga waaweyneen ahaayeen saas baa isku dagaalnay ilaa heer marka waxa la gaaray in oo lay gumaado oo maaragtay awood lay sheegto anina de inaan iska dhiciyo go'aan ku qaatay markii de inaan iska dhiciyo aan rabayne qabiilkii baa aabahay qabsaday waxa la yiri ninkaas adiga baa dhalay duurku galay naga qabo aabahay baa isoo wacay laba farood buu ii taagay wuxuu yiri far ducay far habaar baa ku taagay nimankaas inaa ka hartaa raba oo hadda aad la dagaalsan tahay anay ii soo dacwoodeen markaas ayada aabahay oo saas ileeyahayne xagga maamulka dawladana waa ka dacwoodeen oo macnaha anay markaas duurka ku jiray xagga shabaabna way ka dacwoodeen labadaba waxba waa leeyahay qabo waay kabacdi aabahay bay u tageen aabahay baa soo wacay amar buu isi nimankaas ayaga faraha ka qaad buu yiri amarkiisana ku daay anay aabahay isma dagaalsaneen de amarkiisaan qaatay nimankii sidii baa ku daay sidii baa ugu tanasulay maxaa maxkamadda ka codsanay waxaan u baahanahay maxkamadda sharafta leh waxa ka codsanayaa inay xurnimadeeda isiiso cabdi fataax akhyaar warbaahinta qaranka muqdisho